arrimahaas oo isu tagay ayaa masaajidkan sidoo sheekhu u sheegay sabab u noqday waa markas aan rajaynayno insha Allah taala waqti dheer in laga faa'iideysto wax kale oo kolley hadda ii furan ma garanayo on ka ahayn hada khayrkaas meesha ka xasilay waan rajaynayna insha Allah taala ikhlaas iyo niyad wanaagsan in la isu geeyay xoolahana lagu bixiyay ajirkeeda ninkii bixiyay iyo ninkii gacan ka geystay iyo ninkii abaabul sameeyay iyo ninkii kelimo ku lahaaba ilaahay waa weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala inuu ajir dhammaystiran ka siiyo miisaanka xasanaadkana u saaro wax aad baxsato waxa ugu qiimo badan wax ilaahay gurigiisa aad geliso sida nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiix ka sugan xadiis Uthman fi sahihayn ruuxi ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunyada guri u dhisa oo masjid u dhisa ilaa Allah tabaaraka wa tacaala jannada ayuu guri uga dhisaa riwaayadka qaar kood waxa ku soo arooray hatta meel yar oo shimbiri fariisan kartaba ha ahaato hatta way iska yaraato laakiin hadaba wax ku darsato ilaahay tabaaraka wa tacaala abaal wuxuu ku siinayaa inaad jannada guri lagaaga dhiso marka ilaahay tabaaraka wa tacaala jannadiisa guriyaha idin ka dhiso dadaalkaas aad bixiseenna meel badan oo kale ayuu u baahan yahay lacagtii aad soo dhiibteen badankeed runtii meeshan ay gashay qaybo kamidana masaajid kale tay gashay oo muxuu ahaayay iyaga laftoodu aan masaajidkan ka liidanin meeshii aad ugu tala gasheen way gaadhay biidinlaahi tabaaraka wa tacaala masaajidka salaadaha lagu tukanayo iyo duruusaha lagu qaadanayo iyo muxaadaraadka iyo inta uu jiri doonaba waa rajaynaynaa inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala ajir idinka siiyo miisaankana idin saaro intaas ayaan kelimadayda ku gaabin wabarakallahu fiikum jazakumullahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddana waxaan u wareejinaynaa sheekhana sheekh axmed daahir oo asna maaragtay culimmada magaalada Bambaasana maaragtay yimaadee had iyo jeer masaajidka muxaadaraad iyo casharana ka bixiya insha Allah taala in asna kelima ka yiraahdo duulahay barakallahu fiik بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان ومدين ما بعد أولا waxaa laga sheekeen waa mashruuc masaajidan hadda ahmiyadeeda islaamku waa la ogyahay sida ilaahu yiri markuu nuurkiisa iyo hidaayadiisa ka sheekeeyay nuurkaasi meesha oo mastarka u ah inay masaajid tahay fi buyuutin adina Allahu an turfaca wa yudkara fiha ismu nuurka iyo hidaayada iyo cilmiga waxyiga meesha lagu barto oo lagu tadbiiqiyo oo ajaashu ka baxdo waa masaajida ilaahana idmay in la kor yeelo xagga dhismada iyo xagga waxbarashada iyo daryeelka intaba ilaahayna lagu xuso subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ay ku kulmaan cibaadada isku jeclaadaan isaga warqabaan waa maaragtay asaaska dadka muslimiinta tajamucooda iyo xadaaraadkooda iyo fahamkooda iyo diinta meesha ay maaragtay ay ka dhisanto هذا أجر كان وأنا لك شيكي وحديثك عثمان بن عفان من بنى لله مسجدا بنى الله بيتا في الجنة إلهي يقول إنه جنات وقدس مشروعنا وحلقة فيريا أولا باهد اللوقبي يسيد اللوقف فائدست لوضع إن شاء الله تعالى أقوانا إليه ونمر وحان إمد لابد يكون iyo sagaalka masjideedii aakhirkeeda iyadoon maaragtay masaajid Soomaalidu ay salahayn masaajida la bariyo marna la helo marna loo diido mujtamaca Soomaaliguna aad u badan yihiin magaalada waayahan dambe aad baa marka loogu soo batay marka awalan horta xaajo waa loo qabay aad iyo aad loogu baahnaa waliba waxaa yareed masaajid ahlu sunnada ee la tacaawuno saayka dad aan maaragtay ama iska khuraafiyiin ayaa masaajida qaarkood lahayd wadanka u dhashay qaarka sunnaduna ama way yar yihiin oo dadku ma filayn ama lafteeda fursad badan kama lagama heli karin
marka masaajidkan markii la dhisay runtii aad loogu diirsaday dadkii Soomaalida oo meeshan joogay dad istiraatiijiye leh oo meel ka indilaaqaan leh oo dacwadoodii xor ah ayay noqdeen masaajidka kalena waxbaan ka soo akhriyay masaajidkan markii la furana duruus muntadima qofkii ugu bilaabana ugu horeeyay ilaa intii 3 bilood ah bisha Rajab intii ka dhimaneed iyo Shacbaan iyo Ramadaan intaasba duruusdan ka wadnay aad looga faa'iideystay duruus muntadima ka socota muxaadarada ka socda khudabka jumcada cibaadadii culumadii ku kulanta mujtamaciga ku kulma marka baahida loo qabana aad u weyneed sida looga faa'iideystana maartay aad u weyntahay haddana waa laga faa'iideysanaya insha Allah taala saadarteed dadkii mashruucan wax ku darsaday runtii waxay ku farxaan way anaga wax beena ka marxaati ka cimeyn laakiin waxaan ognahay masaajidkan in aad loogu baahnaa haddii hadda la dhisana in si fiican intii awood Ilaahay baa kamaal heli kar laakiin intii tabar in maartay laga faa'iideysto saadarteed insha Allah inuu amal maqbuul noqdo ayaan rajeynaa qofkii wax ku darsaday qofkii jecel qofkii wax ka akhriyo qofkii khayr qofkii ka qayb qaata xataa hada masaajidka daryeelidiisa iyo maamulkiisa iyo socodsiintiisa waxa soo dhan marka insha Allah taala aniga intaasan idin sheegaya oo xaadira hadana faa'iidadii waa ay socotaa sallallahu alayhi wa sallam جزاك الله خير شيخنا كلمة مهمة وشيء وأنا ما أعرف دمانتي موضوع قرنس عن علماء هذا نحن نقول بيننا أخونا الشيخ علي أسامة أسامة سليمان علي حسين ها شيخ علي حسين بأنه قد بينها يا أو ما أعرف حمن كدعوة المساجد كمجدك دعوة المساجد حقيقة مقالة بمصانع الدعوة ذا خاصة المنهج كسلف هذا واقع قاطي مركا إن شاء الله تعالى ما الله يكسره فضل جزاه الله خيرا الأخ عبد الرحيم إلهي سبحانه وتعالى يا مهدل مهد إلهي سبحانه وتعالى كدبنا وحا مهدل ولا لها رنتي باهدا تاغنيت ka qayb qaatay xoolahoodii iyo maalkoodii ku bixiyay iyagoo rajaynaya inay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu dhawaadaan masaajidkan oo beydkii Ilaahay oo culimadu sheegeen fadaa'ishiisa iyo runtii juhuudda ka socota ilaa hadda taqriiban 7 habeen ama 7 cishaba duruus mutawaasil oo xiriiraha ka socoto muxaadaraad iyo دروس وحوي علمي iyo waxa weeyaan isugu jira runtii taariikhda taasiiska masaajidka iyo dhismihiisa iyo bilowgiisa Sheikh Abdul Wahhab tilmaamay wax ka iftiimiyay waxaan wax yar dib ugu noqonayaa runtii waxaan oran karaa markaskan ama masaajidkan mowqiciisii ama meeshii loogu talagalay ama baahidiisii yaa ku daboolantay baahi badanaa jirtay oo taqriiban dadka magaalada in badan deganaa oo 10 sano ugu dambeysay magaalada si tooska u deganayeen anigu kamid ahaa Sheikh Abdul Wahhab haba iga sii horeeyo oo magaalada iyo dacwadeeda waxaan aad markaa in badan uga fakari jirnay oo fadhiyo badan iyo kulamo badan aanu u samaysan jirnay warseer loo helaa masaajid Soomaalida dadka magaca iyo luqadda iyo wadaaga ay iyagu gacanta ku hayaan oo dumarkooda iyo caruurtooda iyo bulshadoodaba ay ka tawjiihiyaan oo dacwada iyo manhajka saxiixa dadka waxa weeye loo gaarsiiya Ilaahay subxaanahu wa ta'ala mahadiisa kadib dadaal badan oo culimada iyo walaaluhu ay sameeyeen waxa ka dhashay markaskan maanta aad arkaysaan oo culimadiina ay akhbaartiisa iyo macluumaadkiisa idin siisay inuu ka dhashay
marka anigu waxaan oran lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalihii ka qayb qaatay ee nala mushaarakeeyey gaar ahaan walaalaha Holland runtii aanu uga shukrinayno dadaalkoodii gaar ahaaneed sida yani waxa weeyaan wanaagga badan la uga qayb qaateen baahidii ka taagnayd dhaqaalaha ku saabsanayd masaajidka جزاهم الله خيرا waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadkiina rabbi subxaanahu wa tacaala ha idin saaro oo rabbi subxaanahu wa tacaala ha idin suuro geliyo axaadiistii fadliga badnayd ee tilmaamaysay qofkii ka qayb qaata masaajid dhismihii inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada uu fadli weyn iyo guri iyo waxa way wanaag uu ku siinayo rabbi subxaanahu wa tacaala ikhlaas iyo ha idinkugu daro innagana ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo intii kale wada mushaarakayso ka qayb qaadatayna rabbi subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadkooda ha u saaro wajazaakum allahu khayran بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وحنو قدبنا أخونا الشيخ محمد حسين عرالة وأصنع علماء مساجد مركز الفرقان كمذا وعشر هذا 6 ما أرتي شوكت هذا كأخرية إنه أصلا مركز إن شاء الله تعالى كلمة أصنع ويجهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. runtii sidii culimada iyo rag ikhyaarta ay ku warbixiyeen masaajidkan ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkii dhisay wax kula baxay waxaan ugu baryaynaa ilaahay inuu aqbalo fi miisaan xasanaatihim alla u geliyo runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo camal weyn oo jaliila ayaa runtii ka xasilay masaajidana waa la wada dhisaa laakiin qabuulka iyo tacmiirka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kala siiyaa dadka runtii walaalaha ah ee masaajidkan dhisay runtii waxaa markhaati isaakay intaan joogno oga nahay in masaajidkani macmuur uu yahay oo aad iyo aad maaragtay uu qabuul u helay oo ummaddii soomaalida si maaragtay guud ahaan uga wada faa'iidaystaan duruus musalsala oo funuuntii leh oo aadaabtii leh oo axkaamtii leh oo tafsiirkii qur-aanka kalena ay ka socoto khudabtiisa sidoo kale ayadana maaragtay aad iyo aad loo soo xaadiro oo lagu tashado oo runtii meel u noqdo maxallu qiyaada jinsiyaddan soomaaliga meeshan ku nool oo aadna u fara badatay runtii waa meel aad maaragtay u anfacday bal waxaan ku talin lahaay dee intiinii hore qabuulkeedii waa muuqda allah idin aqbale haddana weli dadki wuu ku yaryahay oo masaajidka hadda